dhalini way dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabada u dhilbeen allow dhow Somaliland dhalini way dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabada u dhilbeen allow dhow ودرارتي للتاجي قد ضيع عالمكيني دلانكينو نبض كساسي ودرارتي للتاجي قد ضيع عالمكيني دلانكينو نبض كساسي وما هدافها وانا قدسها وحيد عيابها لكي سعيها وطني قدبتها اللو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرتدى شرفت لي marka waxaan ka codsanaynaa inay xogaa dhigahooda niyar ama ahiyaan ay sir dhageysano caawa farxad bay noo tahay inaan nimaadno shirweynihii shanaad ee jaaliyadda guud ee Soomaaliland ee Jarmalka oo caawa ka dhacaysa magaalada Wiesbaden jaaliyadda guud waxa loo doortay gudoomiyaha cusub ee caawa hambalyeynayno Maxamed Ibrahim Timacase oo maanta caawa halkan ku casmay waa u ducaynayna insha Allah Ilaahay inuu xilka ku asturo waxaan u yeerayaa oo quraanka inoo ku furaya walaalkeen Cabdicasiis Heriyo Cabdicasiis soo dhaw من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابدون ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إلهي قرآن كاينو كان فعو ورتو كفرنا هيستي عالنك قرنك السومالان
samakuwar caalamka iyo ummadda reer Somalilandba sida qurux badan waxaanu sii wadanaynaa xafladeennii iminkana waxaanu yeerayaa xogayaha qaaradda Yurub xisbiga UCID Mustafa Muumin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم bulshada inta tirada badan ee halkan iskugu timiday wiilasha gabdhaha dhalinyarada aqoon-yahanka saxaafadda dhammaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa sharaf noo ah inaanu caawa ka soo qayb galno shirweynihii shanaad ee jaaliyadda Somaliland ee dalka Jarmalka farxad bay noo tahay in maanta mas'uuliyiin cusub loo doorto oo hogaaminayo walaalkay Maxamed Ibrahim Bulaale soo dhawo Maxamed waxaan doonayaa inaan yar dul joogsado taariikhda ay soo martay jaaliyadda Somaliland ee dalka Jarmalka anu waxaan joogaa waddanka Jarmalka muddo ku dhow 15 sanadood 15 sanadood jaaliyadda Somaliland waxay ku soo caanamaashay isu tanaasul iskaro joogsi isku hiilis iyo wax wada qabsi ha iska tamar darnaato laakiin waxay hayto mar walba dariiq isku mid ah socota si kasta oo loo soo kala horjeedo si kasta oo mataqaanaa loo kala tafaraaruqsan yahay haddana tinta haddii midba dhinac ka qabto ka kala u sii daynayay saasay ku soo caaramaashay laga soo bilaabo 91dii waqtigii Somaliland dib loogu soo noqday ilaa hadda jaaliyadda Somaliland waxay mid jirta waqtiyadii hore waxa jirtay waddanka Holland iyo Faransiiska iyo Belgiumka iyo Jarmalka jaaliyad qoray lahaan jireen laakiin waxa soo wareejiyay walaashay Sahra Caydiid oo jaaliyadda ku soo wareejisay Jarmalka inay noqoto jaaliyadda Somaliland oo Jarmalka waxa kala wareegay si sharaf leh oo karaamo leh Allah naxariisto walaalkay maanta inaga hooseeya Faysalna waxa mataqaanaa kala wareegay walaalkii Maxamed Xuseen Dhacsi jaaliyaddu markii Maxamed Xuseen Dhacsi jiray jaaliyaddu gudoomiyaha ka way qaybsantay waxay u qaybsantay laba qaybood oo kala ah laba garab oo iska soo horjeeda 2015kii xafladii 18 May ee Frankfurt ka dhacday waxa lagu go'aamiyay oo Sahra Caydiid markaa go'aamisay in la qabto September jaaliyad loo dhan yahay oo dhameystiran magaalada Stuttgart lagu qabto jaaliyadaasi waxay noqotay to socon weeday waxa ka socon weedayna waxay ahayd xaqiiqda Soomaalida waxay tahay nimaan run ku sheegin runkuguma ooyo jaaliyadu waxa ka socon weeday qabiil waxa ka socon weeday qolo waxa ka socon weeday in si gaar ah wax u wada waqtiga intii ka dambeysay jaaliyada waxa la wareegay aniga oo ah Mustafa Cabdiraxmaan geed hoosti intaan istaagay baa waxaan gudoomiye jaaliyada shacabkii reer Somaliland ee tirada badnaa ee Jarmalka ku dhaqnaa aad bay garab joogsadeen aad iyo aad bay garab joogsadeen taasi waxay meesha ka saartay beelihii cabanayay ee ku cabanayay Somaliland in baa wadata maadaama aanu ka soo jeedo beelaha darafyada ama gobolka Awdal taasi waxay noqotay Somaliland la wada leeyahay jaaliyad la wada leeyahay saasina jaaliyadii ku dhaqaaqday oo ku socotay muddada aanu jaaliyada aan xilka hayay waxaan isku dayay inaan soo ururiyo on jaaliyad midaysan oo aan ka tago sumcad iyo magac leh waana jaaliyada kaliya ee maanta leh institutionkii jaaliyadi lahayd oo dhan anu waxaan sameeyay inaan ku xiriiriyo dhammaan wakaaladda qurbajooga Somaliland Diaspora Agency wasaaradda qorsheynta Somaliland wasaaradda arrimaha dibadda dhammaan waan ku soo xiriiriyay jaaliyadaha Somaliland ee ka jira waddanka qaaradda Yurub ayaan markii dambana xiriir la sameeyay ilaa adduunyada oo dhan jaaliyadaha Somaliland ee la yiraahdo SSE ayaan sabab u noqday inaan ku soo xiriiriyo jaaliyadda Somaliland ee dalka Jarmalka saasayna ku taabo gashay sidaas darteed waxaan ku wareejiyay jaaliyadii si sharaf leh oo magac leh oo miisaan leh ayaan ku wareejiyay maalintii aan wareejiyay jaaliyadaasi dardaaran waxa iga ahayd jaaliyadaasi maanta way isku xidhan tahay beelihii Somaliland way u dhan yihiin sidii daahir rayaalan u dardaarmo waxaan dhigayna kala daadanin waxaan ka soo saaray qolo iyana qolo ku noqonin waxaan idhi waxa weeyaan jaaliyad maanta dhameystiran oo minbar ilaa galbeed loo dhan yahay dayaxay tiigsanaysaa ilaa safaaradihii Yahuudda ayayna garab jooga iska daa kuwii Carabta hadalkaygii maalintii sidaas oo ahaa jaaliyadan wareejiyay saasay ahayd jaaliyadii aan dayaxa gaarsiinay
waxay ku soo noqotay halkii maalintii aan ka qaaday bay dib ugu soo noqotay waa ta sababtay in nusdambeedkii jaaliyadda ay maanta isku yimaadaan oo idhaahdaan tii shalay toole aynu ka duurnay ee aynu mataqaanaa go'aanka adag ka qaadanay aynu dib ugu soo celinno waayo waxay dhaafi weyda esban in la saaro jaaliyaddii waa jaaliyadii samada maraysii baan waxay noqotay in esban la saaro beritoolana waa halkii reer jabuutiye beritoolana bas xumbuligii jabuuti bay raaci doontaa marka hiil baanu nahay garab baanu nahay garab joogsi baanu nahay walaalnimaan ugu helinaynaa ehelnimaan ugu helinaynaa wadaninnimaan ugu helinaynaa wax kasta oo ay u baahan tahay waxaan idinka baahannahay inaad idinkuna u helisaan jaaliyadu haddaba mid bay ka dhaqaaqi waayaan tay ka dhaqaaqi waayaan waxa weeyaan caawa aad baan u hadlayaa ee ay inta badan ka dhaqaaqi waayaan waxa weeyaan xanuun dadka gobollada awdal ka soo jeeda waxa lagu xantaa mar alla markay qurbaha yimaadaan waxay noqdaan wada mucaarid bay noqdaan Soomaaliland ka soo horjeeda waa beentii dhaha Soomaaliland mucaarid bay awdal ku noqdaan sababta maxaa keenay mar labaad baan ku celinayaa jaaliyadaha Soomaaliland ee qurbaha marka ree awdal soo ay yimaadaan qurbaha waxa lagu xantaa ree awdal Soomaaliland garab way garab maraan ama Soomaaliland kamid ma ama waa mucaarid ree Puntland ayay ree Soolna dabada dhigtaan oo daba galaan waxba kama qaranayno waxa weeyaan sababta maad garanaysaa waxa ugu wacan maad garanaysaan waxa weeyaan beelaha dhexe ee Soomaaliland ba sababta keenay inay kuwaasi didaan marka loo yeeri waayo laga daba tagi waayo dad aad wax wada lahaydeen weeyaan la oran waayo kuwii kalena way sii soconayaan marka waxa weeyaan in la isu yeero in hadduu walaalka ka tago la soo garab joogsado in la yiraahdo war maxaad igaga maqan tahay haddii la is oran waayo waxa weeyaan nimba meel buu ka baxaya qadiyadii Soomaaliland 18 May ciid bay ahayd oo ummadda oo dhan maalin ciid oo farxada bay u ahaan jirtay maantana waxa weeyaan waad arkaysaa halkay marayso inama yar baynu ka gali kari laanahayba oo madaxa casaystay Faysal Ali Waraaba wuxuu leeyahay intii badda ka soo tiramay intii nabad qab ku timidina dariiqadii taagan yihiin runtii weeyaan gudoomiyahaygu aad buu fiican yahay waa runtu ka hadlaa marka waxaan doonayaa inaan xaqiiqda taabano jaaliyaddu waxa ka dhaqaaqdaa dhaqaale haddii contribution loo ururin jaaliyadda ma soconayso tusaale aan idin sheegaya 325 oo qoys oo reer Soomaaliland hadday ururiyaan 6 bilood hal mar 100 euro hadda baldaawo 6 bilood 100 euro maxay yeelaysaa waxay noqonaysaa 30,000 oo euro noqonaysaa sanadkii laba goor haddaan u noo 60,000 oo euro waa lacag 100 euro 6 bilood lagu dhibix maxay noqonaysaa miidkeenaynu aasin kari laanahay maanta oo qabiil dabada dhigaynaa oo leenahay reer hebel nin baa ka dhintay masaajidadaynu hoos tagnaa Turkiya waxaynu hoos dhigaynaa Marookiyan miinin isku filnayn waxa weeyaan maalintaan aanu jaalida wareejinay waxaan ku yiri war miidkeenaynu aasanno jeelasha maanta waxay naga jira maalintan xilka wareejinay 12 namood baa jeelasha ku jiray oo waxay ku xidhan yihiin aan la garanayn ama midimida galiyaan ama ha sameeyaan maxaan idhahdaa iyagu hay isdhibaateeyaan jeelasha inamay naga jira wali qof soo eegmi ku jira nin walba reerkiisa daba socda qaran san ku noqon mayno waa dirir weeyaan raalahaada waxa weeyaan dad baa inaga bilaa sharciya dhalinyar baa inaga bilaa sharciya oo istaraas ka qaaday sharci la'aanta miyanu hiinin kari weyne waa arrimaha looga baahan yahay jaaliyaddu inay qabato arrinka saddexaad aan ku sii daraya waxa weeye waxa jira iminka soo kordhay hooyooyin ilmihii laga qaato oo u baahan in loo heeliyo hooyadan yey sugaysaa marka yey sugaysaa haddaan inaguna nidhaahno aynu xoogaa iskala gurgurno dee ma soconayno ma dhaqaaqayno hadda rag badan baan caawa halkan ku sugayay waxay ku maqan yihiinna waan ogahay halkan se ka sheegi maayo haye ma garatay marka waa foolxumo waa foolxumo waxa weeyaan taasi waa taa ta kale ku sii xujisina waxa weeyaan xusbiyada waxaad arkaysaa anu xusbi baan ka mid ahay xusbiga cadaaladda iyo daryeelkan ka mid ahay oo cid baan ka mid ahay mas'uuliyiintiisii qaaradda Yurubna waan ka mid ahay مسؤولك جالية الصامرين وانا كي هل كان حسبي أو عيد الشرم كان وانا هاي أنت وحن سكود يمر والبابا إن هلا عندنا قرب شوكسة أنا هي لسه حسبي يدنا واحد كجبنيين
bal inay dhaliil sheegaan ama ay mataqaanaa ay dhibaato kala sheegaan qaar waxaad arkaysaa ku odhanaya xusbi baan nahay cid soo magacawday baa aanad arkaynbaba meel alla meel laga soo magacaabay iyo cid soo magacaawday aanad arkayn TV-gu la taagay wuxuu ku leeyahay gudoomiye waxaan ay mataqaanaa xusbiga marka waa ruwaayad xusbiyadan waxaan uga digaynaa waan mas'uuliyiinta qaranka ee wadankii jooga nin aad soo magacaawdeen noo keena laakiin nin aynan soo magacaawabin oo annagina kala guraya hanoo keenina xusbigu doonaba ha ahaado kan ka midka ah xitaa hadduu doono ha ahaado intaas baan leeyahay arinta u dambaysa ee aan ka hadlayaa waxa weeye jarmalka markii la arkay xaaladiisa dawladda Soomaaliland markay aragtay inuu sidan tahay waxa loo soo magacaabay safiir miyaad aragtaan safiirkeennii safiirkii Soomaaliland ayaa arkay budgetka Soomaaliland waxa ugu jira $150,000 baa ugu jira safiirka waa abtigayo anu waaba ka xishoonayaa bal ragii kale inay ka xishoodaan ma ahayne ilaa waxaan waa xaqe waxa inuu jaaliyadan mideeyo inuu isagu waa keligii safiir keligii weey miyaad aragteen wali safiir keligii safiir ku xigeen ma laha xoghaye ma laha qonsuliyad jaaliyadeed ma laha xafiis ma laha maamul dhamaan hay'adaha wadankii ka shaqeeyo oo dhanna halkan ay degan yihiin ama wadaha inoo sameeyaan ama beer hay noo shini ay wadankii barigi dhawey toole dhibaatada badan inoo geystay halkana hay'adu ka tagayeen waxa ka sii daran wadankeena abaar baa imika saameyn weyn ku yeelatay hay'adaha saameyn halkana ka tagayeen hadda baldaawo waxa weeye safiirkaasi wuxuu u baahan yahay in mar labaad lagu noqdo marka saddexaad garab intaas oo dhan ka badan ma noqon karno maxamed ibraahim bulaalan soo jeedsanaya maxamed waxa laga baahan yahay dhibaatooyin fara badan oo halkan yaala inaad oday ka noqoto looga baahan yahay waxa lagaaga baahan yahay inaad ummadan u hiilisa lagaaga baahan yahay waxa lagaaga baahan yahay inaad adkaysi yeelato lagaaga baahan yahay waxa lagaaga baahan yahay dulqaad inaad yeelato lagaaga baahan yahay waxa lagaaga baahan yahay inaad shuruudaha shakhsiga ee aad leedahay inaad dhulka dhigto markay timaado danta guud waxa lagaaga baahan yahay inkii ka tagayna wuxuu ku tagay aad ka daba tagto ka ma taqaana kula joogaana aad gacanta ku hayso xajisa lagaaga baahan yahay waxa lagaaga baahan yahay caawd dardaaran badan baan siinayna maxamed waxa lagaaga baahan yahay maxamed waxantu way badan tahay telefoonkaagu in mar walba furnaada lagaaga Mustafa Bimin uu mahadsan yahay nasiib baan u lahaa markuu ahaa gudoomiyaha inaan joogay haddana markuu wareejinayay xaflad aad u weyn buu dhigay waan joogay markaan arkana daahir yaalan xasuustaa waa nin howlkara aad baan u salaamayaa waxaan imika maan raxiim dhammaan waa salaamayaa shacabka isugu yimid meesha dhammaantood aad baan lii salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بعد السلام waxaan isugu nimid shirweynihii shanaad ee wadanka Germany ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo isbedelkii caawa dhacaya marka waxaan isugu nimid halkan inaynu gudoomiyaha cusub aynu xafladiisii aynu isugu wada nimaadno oo in masiirkeena iyo halka aynu ku dooranno mowqifkeena xaq baynu taana u leenahay gudoomiye kusoo dhaw xilka lagu magacaabay caawa nin kartideeda iyo ragnimadeeda loo ka bixi karaa tahay aad baan gudoomiye kugu soo dhaweynaa anaguna waa kula shaqeynaa hil iyo hooba dhammaan haddaan nahay taliyada Germany iyadoo xilli corona lagu jiro aan la ogolayn dad fara badan inay meesha isugu yimaadaan caawa intaan aan isku helay oo dawladda Jarmalka noo ogolaatay marka waxaan leenahay gudoomiye xilka aad qaaday Ilaahay ha kula garab galo sidii raggii hore Mustafa ka cabanayay yaa sidoo ha u socone luqyadii hamarin saaqa yaa wadada cadqaad yaa soo dhaweeyna gudoomiyaha waa kaftan intaasi waxaan yeerayaa ubax shire oo ah fanaanada reer Jarmal Raxmaan Raxiim dhammaan madashan quruxda badan ee ballaadan marwooyin iyo mudanayaal goolahan isugu yimiday aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiinba bacda salaan goolahan quruxda badan la waxaynu isugu nimiday sida aad wada ogsoontiinba xil wareejintii gudoomiyaha hasana ahaatee waxaan aad u soo dhaweynayaa oo aan aad ugu faraxsanahay idinkuna sidoo kale aad igula midaysan tihiin in maanta loo doortay walaalkeen maxamed ibraahim waan kugu soo dhaweynayaa gudoomiye waad u qalantaa taga markii horeba banaanayd oo aad u qalantay ayay ahayd hasa ahaatee maanta ayay ahaatay in horeba lagugu dhiibay hayde waanaanu kugu soo dhaweynaynaa garab maqnaabo waxa oo lagaaga baahnaa waxaan rajaynayaa insha Allah Ilaahay xilka lagu dhiibay inuu kugu astro qoladii horena kulay dhaliil lama waayo xilna dhaliil lagama waayo
qoladii hore halka ay martay waxaan rajaynayaa in aad wax ka bedelan aad keeni doonto mararka qaarna haddii xilal la kala wareejisanayo ama isbedel la rabo ama tallaabooyinkii hore la rabo in wax laga bedelo qofku waa in uu dardar la yimaadaa waa inaanay bahashu ahaanun afka laakiin waa in wax yar ma aamustaan wax walbana ficil buu u baahan yahay waxaan rajaynayaa ficilkeedii inaad muujin doontid gacmana wada jir bay wax ku qabtaan rag iyo dumar dhammaan waan ku barbar taaganahay keligaana ma tihiin waa lagula wadi doonaa hawsha aad baan idin wada salaamayaa dhammaantiin horta aad baan idin wada salaamayaa dhammaantiin xafladan caawa isugu nimi ee ah xafladii jaaliyadda ee shanaad marka aad iyo aad baan idin wada salaamayaa waxa la yidhi hadalka haddii lagaaga horeeyo waa lagu caydheeyaa waxba lagaagama tago marka imika inta ugu muhiimsan baan odhanayaa kale aniga arrinkaygu iska dardaaran maxamed wuxuu baan leeyahay qof kasta oo taariikh leh oo dunida soo mara maalintii soo martay muu ka faa'iidaystay ha noqonin qof karnaqsada waan ku wada ducaynaynaa waxaad noqotaa qof isku wada taariikh wanaagsan lagu xasuusto dhammaanteen ku barbar taaganahay aad baan idin salaamaya dhammaantiin weli barnaamijkeenu baynu dhexda kaga jiraa waxaan ka codsanaa xoogaa codku yar baxaya in codkeen oo yareysaan iminkana waxaan u yeedhaynaa xaawo aadan oo ka mid ah haweenka jaaliyadda Soomaaliland ee Jarmalka iyana in labadeeda kelmad tiraahdo أنا كل تاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدن يمروين مرت شرف تعاو ماشي سقط تمد وحان إذن كسوع إذن كعسوني حفلة محمد إبراهيم تمعسه وحان دلنا يسود وحان كسر يا مجا إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول الله جالية ده شرمني وحان سود ويننا قدوميها عصب Somaliland Germany محمد إبراهيم تمعسه أنا أحا وآدم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أمور الدنيا والدين أما بعد محمد إبراهيم تمعسه مدة 13 سنة waxaan ka soo wada shaqeynaynaa arrimaha bulshada Jarmalka waa nin kartideeda iyo aqoonteeda bale arrinka jaaliyadda Somaliland aad iyo aad baan maxamed caawo hambalyeynaya siyaasiyiin hore aan isku ahayn maxamed anigu intii dambe waxaan u biiray xagga dhalinyarada isna wali siyaasadii buu sii hayaa haddii aan arrimaha siyaasadda maanta Somaliland ka taagan ka hadlo mudane Musabbix Cabdi waxaan leenahay haddii aanu nahay taageerayaasha xisbiga wadani doorashadu waqtigeeda ku dhacdo waxba ku sii dheeraan maayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli marti sharafta qiimaha leh dumar iyo ragba aad baan idin salaamaya waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madashan qiimaha leh ee lagu dooranayo gudoomiyaha cusub ee lagu doortay gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda Somaliland محمد إبراهيم waxaan leeyahay saddex horta hadalkaygu saddex un buu dhacayaa rasuulku kaleey sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri khayrul kalaami ma qalla wa dalla hadal waxa ugu qiimo badan waa ka yar ee murtida leh maxamed waxa horta hadalkaygu saddex un buu kala dhacayaa mid waa dardaaran oo maxamed waxaan ku dardaarayaa in mas'uuliyadda la saaray uu xilkeeda ka soo baxo kulli wuxuu arki doonaa dad la shaqeeya dad ka soo horjeesta waxaan kula talinayaa inuu u dhabar adeego uu kiisa ka soo horjeesta iyo ka taageero labadaba isku wado kulli xilka iyo mas'uuliyadda ayaa iska noocyo badan bulshada kale ee qiimaha leh halka fadhidana waxaan iyagana kula dardaarmayaa dhalinyar iyo dumar iyo ragba in la shaqeeyo maxamed gudoomiyihii horena waxaan leeyahay adiga laftigaagu
xilka waad soo haysay waxaan adigana kugula talinayaa inaad maxamed la shaqayso kulley maadaamaad waayo aragnimo dheer tahay hadalkayga intaasun weeyaan aad baad mahadsantii salaam aad iyo aad baan marwooyinka iyo mudayaasha isugu yimi aad baan u salaamayaa waxaanu caawa halkan ku caleema saaraynaa maxamed ibraahim timacase oonu ku caleema saarayno jaaliyadda Soomaaliland gudoomiyihii shanaad anigoo ku hadlaya afka garabka haweenka wadani ee Germany waxaan leeyahay maxamed waan ku soo dhaweynaa ku soo dhawo jaaliyadda waa lagu baahnaa inaad timaado barakaatu dhammaan waxaan salaamayaa dadka halkan isugu yimid ee ka socda gobolada Jarmalka si maanta ay u calaamad saaraan gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda Soomaaliland oo 5 sanadood mar la qabto taasay maanta ku eg tahay sanad guuradii shanaad ee lagu dooranayo maxamed haddaan laba kelmadood ka idhaahdo maxamed horta hawshan iyo xilkan jaaliyadda kuma cusba in badan buu ku dhex jiray oo waxa uu ka mid yahay raggii soo aasaasay wax ka soo dhisay jaaliyaddan muddo dheerna la soo shaqeynayay wuxuu ka mid ahaa xubnihii madaxdii sare ee laanta Jarmalka ee xisbiga wadani wuxuu imikana intii ugu dambeysay ku hawlanaa jaaliyaddan Soomaaliland iyo hawlaheeda dadka lafdhabarta u ahaa waxaan rajaynayaa inuu hawsha halkii ka sii wadi doono muddada dheer uu ku dhex jiray baleenaya waxaan leeyahay xilkaad qabatay Ilaahay kugu asturo dhammaan anaguna waan kugu garab taaganahay anigoo ku hadlaya afka xisbiga wadani halkan fariin baan kaga faa'iideysanayaa doonayna inaan madaxweynaha u diro waxaan leeyahay madaxweyne doorashada iyadoo dhib laan oo qabo sidii sharafta lahayd aad u qaban jirtay doorashooyinkii hore aad baan idin salaamayaa barakaatu bulshaweynta halkan isugu timid waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka bacda salaan waxaan halkan hambaliyo bogaadin uga dirayaa walaalkay maxamed ibraahim aw jaamac timacase oo caawa loo doortay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliland wadanka Germany waxaan leeyahay walaal maxamed hambaliyo ilaahay idinkiisa waxaad noqotaa mid xilkiisa gudoo ku guuleysta hadalka sii badin maaya waxaan leeyahay guurti baad u tahay madal boqortooyo guunaad geesaha ku haysaa guri reer suldaan baad abtirsiimo gaadhaa gacal waxaad wadaagtaan inta magaca guuna leh adiguna xilka gudo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxda jaaliyadaha Soomaaliland ee gobolada dalka Jarmalka ka kala yimi madaxda xisbiyada qaranka ee madashan ku sugan bahda saxaafadda iyo dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladda sanad guuradii shanaad ee jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Jarmalka dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanta dabadeed waxaan mahadda koobaad leeynu celinayaa Ilaahay inoo suuro galiyay iyadoo xilli xun lagu jiro corona jiro oo wadanka lagu dhunka jiro aan la ogolayn inay dad badan kulan isugu yimaadaan inteena soo qof inaan nabad isugu keenay inagoo caafimaad qabna dhammaanteen aynu caawa barta ku kulannay kulankeena barta caawa inoogu soo galay Ilaahay saa aynu mahad u celinaynaa oo Ilaahay waad ku mahadsanta mahadda labaad waxa la guddiday qabanqaabada ee barnaamijka soo qabanqaabisay martida soo ajiibtay in kulankan isugu yimaado inta haddaan ka gudbo marxaladaynu kulli bartan caawa isugu nimid madaxdii ama xusbiyada ama jaaliyadda ee gobolada dhammaantood waa ka wada hadleen shirweynihii shanaad ee jaaliyadda Soomaaliland oo sidaynu ognahay labadii sanadood mar dhaca ayuu kulankeena ahaa wuxuu daaranaa laba barnaamij xog wareysi ah waxa dalal gobolada kala fog ee dalka Jarmalka mataqaanaa bariyii ugu dambeeyay dadka ku sugan ee reer Soomaaliland ee 100,000 qof lagu qiyaaso wixii marxalada ka dhacay wixii barnaamijka ka dhacay wixii xog lahayay oo la isdhaafsado la isku diyaarsaday talabaad in labadii sanadoodba mar la isdoorto oo gudoomiye la doorto oo caawayaduna halka ka dhacday oo xil culus oo miisaankiisa leh guudka lay saaray oo lay gartay Ilaahayna waxaan ka codsanayaa inuu xilka uu igu asturo oo sidaa la igu gartay aanu waxa weeye xilkaasi Ilaahay igu fududeeyo arrimaha jaaliyadda kuma cusbi sidoo Mustafa sheegay ee khadar sheegay garaadku 10 sano u dambeeyay jaaliyadii dalka ka shaqeynayay midaan xubin ka noqdo midaan la shaqeeyo iyo midaan waxa weeye dusha guud kala socdaba
intaaba xoogaal baan ka ahaa nin gudaha ugu jira baan ahaa nimay bari dhaafsantay miihi waxaanse annaa halkii la soo gaadhsiiyey aan waxa weeye ku dadaalayaa inaan hore uga sii wado oo aanan insha allahu noqonin mid dib ugu celiya halkii shaqo culus oo waxa weeye maanta waxa weeye mas'uuliyad aynu qiimaheeda garan karna weeye dalka intaasoo kun oo kiiloomitir 4 gees bay isu jira dadka ku kala nool inaad xoogaal u noqoto arrimahooda inaad waxa weeye barnaamijyadooda waxa weeye qodob la socoto inaad arrimaha qaranka iyo maalmaha waxa weeye munaasabadaha waxa weeye adigu hogaamiso barnaamijyada dhacaya inaad madaxda qaranka ee dalka imanaysa waxa weeye aad u soo dhaweyntoodii iyo qaabilaadooda ay dusha saarato xil fudud ma aha laakiin si aan dadaal yaraysan maayo waxaan iga codsiya inaan aniga laygu halaynin oo aan la odhanin maanta adaa lagu doortay adu xilkaas dushaada saaran yahay dhammaantiin intiina halkan timid inta daawan doonta ee gobolladii joogta inay dhammaanteen noqono gruub wada shaqeeya oo wada socda oo waxa weeye aniga aan kaligii leego eegnay dhammaanteen xilkaas midowna wada saaran yahay uu noqdo oo aynu wada jir waxa weeye sideen horeba ugu soo wadnay iyo si ka sii wanaagsan baan ugu wadno insha hadalka waxa weeye kulley waxa weeye hadal badani waxa weeye nin yiriina muu wada oran nin yiriina kama wada tagna dhammaan hadalka intii hore waa leega horriri aniga se waxa weeye hadalkaygan wuxuu daaranaa inaan aqbalay doorashadii meesha ka dhacday inaan qaato dusha saartay wixii aad garateen وانا السلام يا دمانتين با والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وطني قدوتا الله دور